ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kumanaan kun oo qof kula hadlay in xarunta Target Centerka oo ku taala magaalada Minneapolis. Abiy Ahmed waxa uu ka hadlay arrin dadka isku soo dhaweynaysa waano iyo wacyigelin. Waxa uu sheegay in bulshada waddanka Itoobiya ku nool ay tahay bulsho aan kala maarmi karin oo isku xulan isla markaasina ka soo jeeda qoomiyada fara badan. Mundanayaal iyo marweyni waad salaaman tahaan wanku farha sanale kullankinna manta dad wanagsan bartahan win in jelahay مدن ماندا ولالت ماندا اسجها إن شاء الله شعب كنا وان أركنا كجلجيل إيو كالسن وين أيان النهينيا waxaan la hadlay dadweynihii ka soo qayb galay xafladda hadalka uu ka jeedinayay in ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya